السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالي قالي قواعد سلامي مركله iyo muuqaal kale subaxnimo wanaagsan soo dhawaada asxaabi. waxaan filayaa in caafimaad ku soo kacdeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof walba oo caafimaad ku soo kaca waxa uga rajeynaa inuu u siyaadiyo qof walba oo maanta xanuun ku soo kacay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xanuunka ka qaado caafimaadna ugu bedelo rabbiga raxmaanka uga rajeynaa intii dhimatay inuu Ilaahay qabriyada u waasiciyo rood maryaadul janna inuu Ilaahay ku soo dhaweeyo jannooyinkiisa waaweyn anagana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isu gadaashoodana fidnaynin saddex dikri ayaa maanta noo wada saddexdan dikri mid kamid ah qofkii Ilaahay ku barya Ilaahay mar ducaysa ma soo celiyo oo si kal iyo laabo oo min qalbi Ilaahay ugu barya mid kamidana waa mid Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markuu dareemo diiq iyo cariiri markuu dareemo murug ama humuum oo akhrisan jiray ma sha Allah afkiisa sharafta badna soo martay mid kamidana waa mid nabiyada Ilaahay kamid ah asaguna Ilaahay ku bariyay ilaahayna uu isla markiiba ka soo saaray dhibaatadii ku dhacday ma sha Allah maanta yaa anaga nooga haboon dikriyada inay akhrisato oo dikriyadaas ku dhaqanto ma jirto run ahaantii waxaan joognaa xilli fitan ah oo murugada iyo dhibaatooyinka iyo wax walba ay saas dadka maad ku yihiin ayaan joognaa saas awgeeda waxaan ii dardaarmayaa nafteeda iyo naftiinaba saddexdan dikri inaan xilli walba ku ceshano inaan baranno runtii wax aada baran ama wax aada juhdi iyo waqti gelin inaadan natiijo keenaynin ducooyinkan mid walba ahi waa laba sadar ama hal sadar iyo bar wax lamid ah wax waaweyn maahan waana ducooyin ku yaala kitaabkeena fiqiga inta badan ku yaala oo soo arooreen oo ducooyinkaas cajiibkaan akhrisano mid kamid adkaarahan subax iyo galab aan akhrisano ayay maarad ku jirtaa kuwa kalena adaaba arki doono waa ducooyin aad iyo aad u cajiib ah halkan ayaan noo soo saaraya insha Allah shiiqa nala wadaagi doona biidnillah ducooyinkan intaan soo saari doona hadduu alla qadaro si aad u aragto ducooyinka ay yihiin iyo inta ay eg yihiin iyo sida uga faa'iideysan lahayd haddii aad xifdisnayn ama kitaabka intaad soo qaadato telefoonka abka ama codsiga muslimka aad ka akhrisan karin warqad iyo qalin intaad qaadatid oo ducadan ku ceshatid micnaheeda iyo siday u qoran tahay baro xifdi ilaahay juhdi يعني أظن بدن بدون جلين آخرين تود أيات برانة سويلاي كبرايا كدبنا مركز آخر ستو تكون عشتو يردها كاحرا على صدق هيستا إله وكاحلنا يا إلهنا سبحانه وتعالى الدعاء هذا وأقبليا قفوا البؤر نجمده ما أنت وحقورة وحيتها إنه الدعاء وإلهي ويديست إلهي وكأقبله كدبنا وإله سبحانه وتعالى سيا وحقودونه هذا جنتها هذا أدون يأقر ما عرفت أنت وأباها النهاي ما فهمتين aan ku celceshano si Ilaahay humuumta iyo murugta uu nooga qaado ducooyinkan aad iyo aad bay cajiib u yihiin aad iyo aad bay mastino u yihiin inaan laazimno oo aad u akhrino ayaan nafteedii iyo naftiinaba ku waaninaya ilid walba oo maanta gargaraacado hadaa ducooyinkan laasimato Allah subhanahu wa ta'ala uu ku balaqaya soo dhawaada waa wada dhageysanaynaa in yar oo aan ka badnayn 7 daqiiqo iyo sikimo kadibna insha Allah halkan ducooyinka waan soo saari doonaa soo dhawaada marka qaado oo qabso daawada nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam arabkiisa soo martay ee cudurkan lagu daaweynayo dhowr daawo ayaan qaadan doonaa bal qalbigaaga isii daawada koobaad nabigeena alayhi salatu wassalaam wuxuu yiri qofka ku ducaysta ducadan markuu dareemayo xaaladan noocan oo kala ah Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika maadin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قفك الدعاء كد عيستا أبا المرنتيس محيتهي إلا أذهب الله همه وغمه إلهي والولك كاقاضية والبهارك كاقاضية وأبدله مكانه فرحا ماشي والولكنا وحال قلنا يا فرحة
iyo raynrayn iyo dhoolacadayn iyo firanfircooni iyo dhiig cusub ayuu alle kuu gelinayaa subxaanahu wa tacaala. saxaabadiiba intay la yaabeen oy la tacajubeen oy la imbihaareen ayay dhaheen rasuulki ilaahayow miyaynan habboonayn ducadan in dadka la baro? haa buu yidhi waxaa habboon qof kastoo ducadan bartay inuu dadka sii baro. waxaanu leenahay sida uu doctor maajid cabdalla uu yidhi qul liladii naama walaxzaanu tukhniquhu wahamuhu fii dalaami alleyli yushqiihi هون على قلبك المحزون إن له ربا سيملأه نورا ويرويه. waxaad ku dhahdaa midka habeenkii seexan waayey ee sariirta sidaa iskugu gedgedinaya waxaad ku dhahdaa ee humuumtu ay qalbigiisa buuxisay qalbigiisana uu cidhiidhiga noqday waxaad ku dhahdaa هون على قلبك المحزون إن له ربا deji oo hoos u dhig qalbigaagan murugaysan ogowna wuxuu leeyahay ka khafiifi dhibka haysta maxaa yeelay ina lahu rabban sayamla'uhu nuur iyo iftiin oo dhergin doona ayuu leeyahay. taasi waa daawada koobaad, kiniiniga koobaad, sharoobada koobaad waa ducada allahuma inii cabduka wabnu cabdika ابن أمتك إلى آخر الدعاء. كنينك اللبات بالقبصة نبي الله يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ducadii uu ku badbaaday hammigii murugadii asagoo badda iyo kalluun dhexdii ku jira uu halkaa ka soo dhawaaqay kadibna ilaahay uu ka fayday murugadii uu ka qaaday walwalkii. ducada waa ducadee waa inaad dhahdaa adigoo weliba macnaheeda garanaya qalbigaagana soo xaadirinaya hadalka nabiga xaqnimadiisana qiraya laa ilaaha ilaa ant. waa tawxiid khaalisa wey aadan wax kale ilaahay la weynaynaynin oodan la caabudaynin oo aadan la baryaynin ilaa anta ilaa adiga mooye inaad dhahdo subxaanaka. ilaahay waa inaad dhahdo allah ceeb ma lihid kadibna waa inaad dembigaaga qirato oo dhahdo inii kuntu min alظaalimiin laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min alظaalimiin. intay kugu qaadan ducadaa inaad xifdido dhegayse marka hadiyada iyo kiniinigan iyo sharoobadan iyo daawadan aad qaadatay dhegayso nabigu sal ly slam wuxuu yidhi kuma ducaysto ducada qof muslima oy dhibaato cididaa in la egba allaha ka dhige ay murugo dareemaya dhibaatada ugu yar xataa ay haysato ila stajaaba allahu lahu. ilaahay baa ducadiisa ka aqbala sidii nabiyullaahi yuunusba ilaahay uu oga aqbalay subxaanahu wa tacaala. kiniini saddexaad baan kuugu darayaa, sharoobo saddexaad baan kuugu darayaa كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحولي عبد الله بن عباس نبي عليه الصلاة والسلام مركو دريم والول إيا والبهال إيا ضيق الصدر عريري ير مركو دريم وحوليه تشري حفظي سودو قال إيا ورقد سوقاضو كوعل علي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. ومن قصف حضور ماي صدر حتى مدنو سوق هذا قرن أو قرأكو علي نتيجة إذا وانكسين دون أنكو عليو وعلى هاي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. توحيد خالص لا إله إلا الله العظيم الحليم. أدقو إنت حمان قليا أو عاسنا يبو كود القادنا يا الله عظيم ويوانا حليم.
الله السماوات كودن أبوري لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم الله عرش وين أبوري خالقي سأ أود اللسيي أيات توحيد كخالص كأ أيات كبر ييسا دعاء داسنا ودعاء عجائبة وإلهي كربتك فايديو أقونا يا عبد الله سيدا ويلي الشيخ عثيمين رحمه الله وعيلي وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله ارتفعت عنه الهموم والغموم مركز توقفك ألا أدوادو حسك ألا أبضيو إلهي وحوك قاضا مروقد إيا والبهارك قال جل جلاله ألا بذكر الله وردقيس دقاها نفورة قلبك نفورة والقرآن كإيا ذكر إلهي وقلبي وكل عصلا تيك توك iyo filimo iyo riwaayado markaad walbahaarta aad ado waa isku daminayaa iyo mukhadiraad iyo sigaar iyo qaad iyo xashiish waa wallaahi inuusan qalbigu ku degaynin run badanaa maasha allah qof musasal iyo filin iyo tiktok iyo balaayo ku jira duco intuu aqriyo inaan laga aqbalayn amaba qalbigiisa haduusa joogo waa nii sheegay xalana waa nii soo gudbiyey qiso gabadhan intaasoo waqti ah adkaar aqrisanaysay duceysanaysay qur-aanka micnihiisa garanaysay aan marnaba murugta iyo hamuunta heese aysa ka tegaynin qalbigeedoo maqnaay aawadeeda maaragta gabadhan filin ma daawanin laakiin alqalbu qaa'ib aljismu xaadiray ahayd markasta way duceysani waxbay aqrine ilaahaybay barye haddana qalbigeeda ma joogo markay ogaatay in ducooyinkeeda iyo baryadeeda يعني قافك دحيالي أيضا ما ركتي يعني وسلاي وأقبلين أما همومتن وقتجين إتهاي إنه قلبي جيد المقيا مركي أوقاتي قلبي جيد مع الجسم جيد صح هذا السنة واتن قبل عاف ما تساعدين شيء حالي مركول عليه قالي دعوين كان مع أذكارات كان أتكو قالي أن كفى السنة هدو إلى سبحانه وتعالى وقدره إن حالهم لنا أنا قصيدين شيء قصيدين شيء غير next video بإذن الله الكريم هدو إلى سبحانه وتعالى وقدره مركا عارجينا يا inay walaalo badan gaarto qisadan macnaha dacooyinkan inay walaalo badan gaaraan inaad u shargaleysaan walaalo badan oo maanta mugdi hortooda yahay oo isdhahaya quus nolosha ka taagan inay ogaadaan inay quus yacni qofka mu'minka qofka islaamka ama mu'minka inuu quusto inay dembi ku tahay inuu ogaado sababu ilaahay baa leedahay adduunyada imtixaana lagu keenay annaga waxa waaye dad oo indhaha istiraaya camala u dhaqmaynaa anagu og in imtixaanna loo keenay oo daar imtixaan aan ku jirno ayaa wax nagu dhacayaan wixii markay nagu dhacaan waa niyo jabeenna waa quusanaynaa nasiib inaa adduunka ku lahayn camal yacni ilaahay baaba inaan nasiib ku leenahay iyo intaba og ilaahay baana keenay imtixaan ayuu noo keenay ma fahanteen inaan ka faa'iidaysano oo imtixaanka marka kugu dhacaa tiri alxamdulilah calaa kulli xaal maalin dhaweed anoo istaal jooga ayaa mar qura waxaan arkay gabar dhalinyaro ah oo intay kasoo baxday meel dhakhtar ka soo baxday meel combyuutarta wax lagu saaray dadka lagu saaray imaatay mar quraanta saa u fadhiisatay saas dhahday aniga marka saa idiin sheegay qofka markaan saa u arko waa dareema inay wax ka qaldan yihiin gabaran teleefon waxaan ka qaatay jaajar aan ka bari telefoonka jaajarka iga dhacsanaa saasta aan jaajar gabadha aan xarig u gashtay ayaa indhahii ku dhaceen kursi agteeda yaala gabadh fadhisa gabadhaas saa markaan u eegay jaa waxaan dareemay inay gabadha wax ka qaldan yihiin waan fiirshay hoosaan u fiirshay dhowr mara saa u fiirshay ilaa qofka inaan saa indhahaa ku tiraahdo ma fiicne abay maxaa kugu dhacay baan ku iriyo yacni gabadha qalbigay ka oynaysaa halkaasay ka oynay intana way isku celinaysaa yacni intana way ka oynay ani marka waan dareemay gabadhan qalbiga ka oynayso maxaa kugu dhacay baan ku iri gabadh dhalinyarahay ahayd markaasay igu markii yacni waxna iguma dhicin waxaba intii tiriyaan ku iri maya waxa kugu dhaceen ma qof baa kaa dhinta maxaa laguu sheegay maxaa kugu dhacay mayay tiri ilmo yaro caloosha ku sido waa gabar yaro ugub ah oo gabar dhalinyaro ah oo 6 bilood markaas joogo 7 bilood sii galaya waxaa laygu dhahay wadnihiisa ma shaqaynaayo marka qof wadnihiisa shaqaynay inuusan nooleyn baan u arkaahay tiri marka adiga gabadhi waa dejiyey waxaan iri wax kasta ilaahi subxaana watacaala ayaa qoray waxaa laga yaabaa ilmahan haddaa maanta dhal laheyd isagoo wadnaha ka shaqaynaynin oo nool inuu ilaahay imtixaan adduunkaaga dhigo waa saxay tiri wallaahi ilmo nooleyn oo macnaha caafimaad qabinka lagu dhiibo waa imtixaan marka waxaa laga yaabaa ilmahan dhakhtarka inuu been sheegaa oo wax kale si kale u arkayna waa macquul dhakhtar kala tag
dhaqaatiirta badso qalbigana deji niyadda khayr u sheeg ilaahay wuxuu ogyahay markastoo maslaxadaada waxa adiga hayn karto wax ilaahay maaragtay yacni adiga aad xamili kartid ilaahay wuu ogyahay ayadoo degan maasha allah kasoo tegay marka qof kasta waxaa ogaataa inuu haddii maanta uu helo wax qalbada u dhisa markuu murugeysan yahay ama wax u sheega wax wanaagsan oo meel ku gaarayo inuu qof kasta qaadanayo ajirka aad la qaybsano adiguna sheergaray ana waa noo soo gudbin insha allah soo dhawaada subaxnimo wanaagsan ama aroornimo wanaagsan oo mar kale iyo muuqaalkii koowaad subaxnimo like share commentiga waa xagiina fikradaha quruxda badanna waa xagiina soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu